assalaamu calaykum. waxaan idiin soo gudbinayaa xikmado aad u qurux badan oo ku saabsan nolosha. inaad samayso waxaad doonto waa xorriyad, inaad jeclaato waxaad samaynaysana waa farxad. haddaad rabto u soco si tartiib ah, laakiin weliga ha u socon gadaal. haddii aad u socoto tartiib waad gaaraysaa meeshaad rabtay, laakiin haddii aad u socoto gadaal waxaa gadaal uga laabatay hadafkaagii. xanuun walba waxa uu ku siiyaa cashir walbana waxa uu beddelaa naftaada. maalin walba oo ku soo marta uma wanaagsanaan karto, laakiin waxaa jiri kara waxyaabo wanaagsan oo ku wanaajin kara maalin walba. dadka dunida ku nool waa 7 bilyan, haddana waxay leeyihiin 14 bilyan oo weji. saddexna ha noqo qof xoogan, laakiin ha noqon qof xaasid ah. noqo qof xishood leh, laakiin ha noqon qof xishood badan. noqo qof naxariis leh, laakiin ha noqon qof daciif ah. ha ku kalsoonaan wax walba, sababtoo ah xusbadu waxa ay u egtahay sonkorta, haddana waxa ay ku kala duwan yihiin dhadhanka. nin ayaa maalin maalmaha ka mid ah weydiistay allah inuu cadowgiisa ka fogeeyo si aysan dhib ugu geysan, laakiin maalin kadib wuxuu waayey saaxiibadiisii ugu dhowaa. marka ay nolosha ku siiso 100 sababood oo aad la ilmayso, samayso 10 sababood oo aad la dhoolacadayso. iska cafi dadkii ku dhibaateeyey, laakiin ha ilaabin marnaba. haddii aad rabto inaad noqoto qof wanaagsan, samey waxyaabo wanaagsan, sababtoo ah wanaagga la sheego waa samaynta ficilo wanaagsan. dadka guulaystay ma ahan dad aan weligood guuldaraysan, laakiin waa dad aan weligood isdhiibin. dadka quruxda badan mar walba ma wanaagsana, laakiin dadka wanaagsan mar walba waa kuwo qurux badan. iska ilow qaladaadka, laakiin ka qaado cashiro. haddii aad rabto inaad wakhti badan la qaadato alla weyne subxaanahu wa tacaala, akhri qur'aanka in badan. waxa ugu muhiimsan ee aabbo u samayn kara carruurtiisa waa inuu jeclaadaa hooyadood. haddii uu qoyska ku dhisan yahay jacayl, carruurtu waxa ay ku korayaan naxariis iyo kalgacayl waalid. maalin walba oo ku soo marta uma wanaagsanaan karto, laakiin waxaa jiri kara waxyaabo wanaagsan oo ku wanaajin kara maalin walba.